السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتنا قيمها بدنا كوحدة برتنا يوتيوب حقتون ميديا سوق على فيسبوك بيج كنا حقتون ميديا واحد دينها هنا مانتا أرنتا كوسابسن دكتور حاليا ننكي كوعان بحي ديلا دايركا أيو سو ساري هذا لذا بدن أهل حلالها كاسو شلي تولي مقالة نيروبي عاصمة دالك كينيا غيرهن حافظة أي سومالي كوبادن تهي إسلياي كوهلن تمر كعراضي سيدي هاو وقاهد لجري inay dumarku wiilasha Soomaaliyeed lacagta ka dhameeyaan kadibna ay uga tagaan oo yiraahdaan dil daayeerka iyo ereyo labida balse inta ay lacagta jecel yahay oo ay amaanaan inkastoo uu xaliye buggiisa ku soo qoray sidatan oo ka hadlay arrimihiisa oo si wadi doono soo ragga Soomaaliyeed oo garab taagan yahay marnaba aysan dhici doonin inta uu nool yahay in ragga Soomaaliyeed lacag looga gurto haddana waxa helay habla cadaysan iyo ku helay xaafadda Islii kuwaas oo si xun u jirdilay sida la sheegay amba wararka ay sheegayaan taas ayay dhalisay in faraha bulshada si weyn looga faaloodo oo ay wiilasha qaarkoodna aad u taageeraan halka ay dumarka qaarkood ka soo horjeesteen arrintan ee ay ku tilmaameen inuu kala xaasidayo lamaane ishqi iyo ishqiraar isku hayay oo hay dhexdooda taalay mishqo jacayl taasoo ugu dambeyn isku bedeshay inay wiilasha Soomaaliyeed jeebkooda ilaashadaan hayna waana ka dhigtaan hadallada ka soo baxaya Dr. Xaliye wuxuu ahaa wariye hore oo in badan ka soo shaqeynaya warbaahinta sidoo kale oo xaglin jiray dumarka Soomaaliyeed kana soo sheekeyn jiray businesskooda inta badan iyo waxyaalaha ay qabtaan iyo qiimaha ay ugu jiraan bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda balse wuxuu isku bedelay dhiirigeliye iyo mid ka soo horjeeda qaabka ay dumarku ula dhaqmaan wiilasha isa ay marka dambe uga tagaan cidlada balse ugu dambeyn waxa helay habla cadaysan kuwaasi oo jirdilay inkastoo hadda xaaladda caafimaad fiican tahay lama filin inay bulshada Soomaaliyeed sidan oo kale u dhaqmaan balse waa mid dhacday saaxiibayaal fiidiyoga la gareeya warbixinta oo dhameystiran halka daawo